waxaa la yidhaahdaa qaafiyad baa la yidhaahaa midna qaafiyad baa la yidhaahaa afgiriisa rhyme baa lagu yidhahaa keenana waxaa la yidhahaa alliteration oo xagga horu galaa marka igu soo celi haddaba maasadii soomaaliga inaan dhala ee aan lahaa tixdiya tiraabtu maxay ku kala duwan yihiin tixdiya tiraabtuna bal waxay ku kala duwan yihiin in midna la soo xigto midna aan la soo xigan ta labaad waxay ku kala duwan yihiin tixda soomaaligu waxay leedahay xaraf haddii xarafka laga baxo wuu jabaysaa maasadu way jabaysaa haddii xarafka la kow xarafkuna halkaa waxaa ku sii jira yaa ilaahay waxaa la sii geli karinoo xaraf raacaasaa isaguna bad ah xaraf raacana shuruudo fara badan leh oo maxay markuu mahmaahda raacayo markuu lamaanayaasha raacayo markuu raacayo gabatix raacayo iyo sida loo sameeyo xaraf raacana isaguna adag oo dhibba eeg xaraf waxaa lagu yidhi eeg ninka la yidhi waxay itixaam ku tahay xaraf raacu xaraf keliya lagu odhanayaa qaado oo af soomaaliga ku jira af soomaaligu waa 230 xaraf waxaa lagu leeyahay xaraf keliya raac haddana ha ka bixin ujeeddada macnaheedu markaa waxaa lagaa rabaa inaad hodan tahay hodan afka inaad haysato faakabolirigaagu matalan haddaad gabayga ha ka gabayso waa inaad haysato kiishna loo wada ha aadi haddii kale waa badxina waad soo xidhmaysaa oo waad xidhmaysaa oo waxay kula gelaysaa af carabi bay kula gelaysaa fidibi oo waxaad arkaysaa ninkiyo carabi mina ku rafanaya markuu af soomaali waayo ayaa carabi mina kaaga rafanaysaa ay kaaga rafanaysaa qaarada waxa bay ku tiriyaan baaf oo dadka af carabiga u beerahdaan rabto af carabiga ku yala badayay baaf ingiriisigu waxa ku muuqanaysa hodanimadii baa ku yar oo xarafka la yiri ka hadal ayuu ka waayay xarfo badan horkaasuu kalmada carabiga bishlaya ama midkiiba hindiga oo helana uu bishlaya waa iska horeyn oo uu galaya qalaba isu gabiyay reer magaalka isu gabiyo horkaasaa reer baqaladayna af ingiriisiga bartay aba fitraa oo biiga u kacay ayaa ilaa reer bii istridaa'in yara ishaqso oo ay u haystay markaas waxay ku tidhi halka aad ka soo bood ciyaarta soo waxay isleedahay ka yeelay dhaxda suuqa ka xidhan aw beedka ah la ka cadid baystay markaas waa laba tuule u sheegaysaa waxay tidhi kurtiriyo kolba caday kurtir iyo waa laba magaal waa laba tuulo kurtiriyo kolba caday waxay tidhi kurtiriyo kolba caday waxay tidhi kurtiriyo karuurey bay tahay kurtiriyo karuurey ayaa u dhow bay tidhi waa tuulo kale inankii reer miyiga waxa loo magaalo shaydaan ay tirinayso tuulooyinka wada kaada buu ka wareeray markaasuu sidii alwaata ku xilay dab xal samaysaa af badan ku hadli maayo af bagaray wuxuu sidii iyadoo daaf giraasiga ay qoon af giraasiga ku badayso wuxuu yiri often ways ka always buu often wuxuu yiri often ways ka always adu dhowda kawdi ingiriisi lima professor way ku adag tahay buu kawdi hadduu afku ka noqdo sooray way ku adag tahay waa mashaakil oo aad xarafku kugu adkaado aad sooray way ku adag tahay seerka inay af ingiriisiga u yaqaana haday ka noqdo waxa higaadu xaraf raacu wuxuu ilaaliyaa wuxuu cadeeyaa hodannimada qofka gabayaaga ah oo waxa la doonayaa xaraf kaliya isaga oo ka bixin marba waxa kugu soo baxaysa qolooyin isku dayday higaada imika qaar way halka way fadhiyaan baa laga yaabaa rag isku daydayaya ragiina bilaabayo waxay ku marba kalmad markaad beedkii soo yara listo ayaa waxa kula kulmaysa kalmad baa kaga macaanaanaysa mahshi aan xarafkii loo baahnaa hayde ayaa markaas aan si aad u dudagaysa kalmad xarafkii ku galimayso markaas ay markii qaar carabi baa kala baa ila ducaanaysa marka ducaashay ku gabaga lama ducdo walaga hada ducato ixtiraaho saala yari ka soo dhaxday gabay baa markaa raga qaar balaag waxa dagtaa ninka gabagiisa barinayay ee laha rag waxaan ku maamulay qaranba ku maamuusi ninka laha min buu ka gabayay markaas waxa soo gashay wuxuu siiri dhaaro oo wuxuu duliya wallahi billahi tallahi buu siiri wallahi billahi tallahi midna mibkii u galibaysadii xagabay uu ka socdaa waa miilayay rag waxaan ku maamulay qaranba ku maamuusi masayna loo tolo ma martan loo tahay wadaalkii laga waa ka gabayay markaas wuxuu siiri dhaaro ma gabay
saddexdii markaasuu dee uu garan waayey wallaahi bilaahi wuxuu yidhi magaca lee xaajadaa layma marisiiye buu yidhi baleekada xagguu kaga yimi intuu iska wada tulay wallaahi bilaahidii ayuu miinkii siduu u galay ha u dhaartay ninkii dee u dhaartay saddex magaca lee xaajadaa marisiiye farshaxanka bal ku jira bal halkuu ugu tegay daawo si aanu miimkii ugu bixin ayuu wuxuu soo qaatay khayaalkiisii magaca saddexduba waa magac ilaahay buu markaa magaca baa u soo baxay waxaanu ka hadlayaa waa magaca ilaahay magaca waa miimkiina uu ku jiraa way ku galaysaa buu yidhi saddex magaca lee buu yidhi xaajadaa lee wuxuu kaga maarmay wallaahi bilaahi talaahidii eeg waa halka ay ku jirto farshaxanka gabayaagu nin gabayayey ayaa ilaahay buu baryayey markaasaa waxaa soo martay walahu lasmaa'u alxusna fadcuuhu biha baa aayad qur'aan tirahda walahu lasmaa'u alxusna fadcuuhu biha ilaahay wuxuu leeyahay magacyada asmaa'ul xusna la yidhaahdo ee ku barya baa la yidhi barya ilaahay yaa raxmaanu yaa raxiimu yaa wad ilaad ku baraydo magacyada ilaahay baa lagu baryaa bay aayaddu qoraysa markaad ilaahay baryayso markaasaa gabaygiisuna waa baclay baaba qamiskii baa dhintay boqolkay oo heedhe taasuu hayaa oo baclay buu ku jiraa ba 99 markaasuu yidhi oo labisay haayeen magacyada 99 iyo baclayda la iskeli baayeen meeshana waa ba xarafku dee meel 99 kii ka galaa buu garan waayey wuxuu yidhi boqolkaaga magacaya mid kala yaa salaam غير السد وين حي ما غير السد هي غير السد وين ذلك غير السد وابس موضوع شغل قلبها صاير هو كان بيركو واقف لك boqolkaaga magaca miska soo kaltay hada dad si weyn